بعدين channelka ku xiran sabca jazeera waxaa idinka codsanaynaa marka hore inaad like noo saartaan subscribe noo saartaan viewskana aa noo badisaan waxaa halkan maanta kusoo bandhigi doonaa videogeeni excel ahaa ms excel casharo taxan waaye waxaanu ku qaadan doonaa luuqadeena hooyo ee af soomaaliga excel siyaabo fara badanaa lagu bilaabaa ilaa 4 siyaabo lagu bilaabaa jirto laakiin hase ahaatee anaga halka siyaabo babulaha isticmaalaynaa waxaad tegeysaa muxuu ahaa start buttonkaas halkaa start button waaye oo ku dhufanaysaa kabacdi waxaad raadinaysaa all programs soo marka aniga halkaa all program iguma qoraya laakiin hoose usoo jiidayaa waxaa ka dooranaya meesha Microsoft Office 2013 igu jiro halkaas ku jira Microsoft Office furayaa Microsoft Office waxaan kasii dooranayaa MS Excel ka dooranaya Excel 2013 halkaas ka tagaya Excel 2013 Excel interface soo kacayo muxuu ahaa qaybta ugu horeysa una geenaya Excel qaybtan ugu horeysa Excel wuxuu u kala baxay ilaa 2 qaybood qayb muxuu ahaa waa Excel waxaa ku qoran muxuu ahaa recurrent qaybta bidix calaamada cagaarka ay saaran tahay waa inta file oo aad furtay oo muxuu ahaa aad isticmaashay oo aad access ku ahayd aad isticmaalaysay qaybtan kalena waa qaybta muxuu ahaa cusub ee aad muxuu ahaa hadda inaad furato rabtid soo marka Excel 2013 16 iyo 19 buu waxay leeyihiin muxuu ahaa latest versions waa blank workbook iyo sales report soo marka haddii aad muxuu ahaa rabtid inaad xisaabisid expenses iyo waxyaabaha qarashaadka baxo Excel wuxuu Microsoft waxay u sameeysaa qayb expenses ah si shaqada lagu fududeeyo aad qaban lahayd drawingkii iyo colorintii waxyaabihii laga rabay personal monthly budget directed way leedahay budgetka bishaas adiga ugu baxaa inaad xisaabisid directed muxuu ahaa inaad sawirtid looma baahan halkaas ka dooran kartaa Excel muxuu ahaa Microsoft intaas ku soo kordhisay haddii aad rabtid scratch cashar cusub inaad meesha ka bilowdid ama muxuu ahaa design cusub aad samaysid waxaa ka dooranaysaa blank workbook soo marka anaga waxaan rabnaa inaan isticmaalno blank workbook ku dhufanaysaa blank workbook marka ku dhufatid Excel interface kuu soo baxaayo halkan Excel muxuu ahaa waa hal workbook halka workbook marka wuxuu iskugu jiraa different worksheets iskugu jiraa worksheet iyo workbook waxay kala yihiin muxuu ahaa markaad warqado fara badan koobi kala baxayd shahaadooyinkaaga oo aad envelope gelisid bashqad aad gelisid bashqadaas hal workbook waa laakiin warqadaha ku hoos jiro oo muxuu ahaa shahaadooyinkaaga sida primaryga iyo secondaryga iyo jaamacadahaagana waxa waaye worksheets waa soo marka workbook iyo worksheet sidaas ay kala yihiin Excel markaa soo furtid waxaa imaanaysaa muxuu ahaa interfacekan file waxa waa meelaha aad ka helaysid open new information save as print share export markaad muxuu ahaa file inaad save garaysid inaad open garaysid iyo informationkiisa waxyaabahaas ka helaysaa file home tab muxuu ahaa qaybtanito waxaa la isku dhahaa kore home insert page layout formulas data review view and team internet waxaa la isku dhahaa ribbon la isku dhahaa soo marka ribbonku wuxuu iskugu jiraa inta kore iyo muxuu ahaa keyboard font iyo muxuu alignment numbers marka ribbon waxaa ka mid ah muxuu ahaa home waxaa ka mid ah insert waxaa ka mid ah page layout formulas intaas dhan waxaa la isku dhahaa tabs la isku dhahaa laakiin waxay hoos tagaan ribbon ay hoos tagaan soo marka home wuxuu leeyahay muxuu ahaa a group of groups oo kala leeyihiin keyboard group gooni uu leeyahay keyboard wuxuu leeyahay group gooni ah groupkaas waxay ku wada ka kooban yihiin cut iyo copy iyo muxuu ahaa paste iyo format painter soo marka cut iyo copy iyo muxuu ahaa paste waxaa la isku dhahaa muxuu ahaa commands waa kuwa shaqooyinka qabanaya laakiin hal group waxaa la isku dhahaa keyboard fonts ayagana muxuu ahaa group waxay ka kooban yihiin bold italic underline size-ka muxuu ahaa farta in laga dhigo rabo farta muxuu ahaa nooca aad inaad ka dhigtid kalaradeeda waxyaabahaas waxaa la isku dhahaa ayagana muxuu ahaa group la isku dhahaa intaas hal group font yihiin laakiin mid walba command waa bida weyn arkaysa bold lahaa
farta xoogaa. This is our second part Excel bilowgeeda. So waxaan sharaxaynaa muxuu ahaa groups iyo muxuu ahaa waxaa kaloo sharaxaynay commands. So marka home wuxuu leeyahay clipboard group, font, alignment, number, styles, cells, editing. intaas group yaal isku dhahaa. So marka copy iyo cut na waxaa la isku dhahaa command isku shaqada qabanayo. So muxuu ahaa qaybtaas waa qaybta. waxaan bilaabaynaa muxuu ahaa sidii aan Excel data u gelin lahayn. haddii rabtid inaad noqotid ruux muxuu ahaa data analyst ah ama financial analyst, haddii rabtid inaad noqotid Excel waa inaad taqaanaa. bangiyada ama shirkadaha waaweyn ama dowladaha waxay badanaa isticmaalaan Excel oo ah ay ku xisaabiyaan daatooyinka iyo macluumaadka dowladda oo idil. hadday noqoto muxuu ahaa wixii dhaqaale ah, bangiyadana waxay u isticmaalaan xagga dhaqaalaha, dowladdana waxay u isticmaalaan xagga taxationka iyo dhaqaalaha ayagana. marka Excel muxuu ahaa haddii aad rabtid shakhsi inaad noqotid muxuu ahaa data analyst inaad noqotid ama muxuu ahaa financial analyst, Excel muxuu ahaa waa inaad barataa diibna u barataa ilaa iyo muxuu ahaa heer hoose. marka waxaa bilaabaynaa maanta qaybtani ugu horeysay muxuu ahaa data aan ku gelinayno muxuu ahaa computerka. so marka hore muxuu ahaa waxaa highlight garanaynaa qaybtan intaan muxuu ahaa qaybta u gelin qaybtan A B C D E F G H arkaysid waxaa la isku dhahaa intaa kore column aa la isku dhahaa. intaan hoose 1 2 3 4 5 up to million waxaa la isku dhahaa row aa la isku dhahaa. kolomada haddii rabtid A B C D inta ku agta inaad ogaatid waxaa taabanaysaa end key aa taabanaysaa, arrowda waxaa taabanaysaa qaybta midigaa taabanaysaa. kabacdi Excel wuxuu keenaa qayb ay dhahaan XFD waxa ugu dambeyso XFD ugu dambeyso. XFD waxay u taagantahay approximately 300 columns uu leeyahay Excel. haddii rabtid inaad ogaatid rowyada intuu Excel leeyahayna arrow keyga end keyga dhaqsiinaysaa, arrow keyga hoos u jiidaysaa. Excel marka wuxuu leeyahay 1,048,576 rows uu leeyahay Excel. so haddii rabtid inaad buuxisid muxuu ahaa intaasoo idil data ah haddii rabtid intaasoo idil data inaad buuxisid fine muxuu ahaa waa buuxin kartaa, you'll be amazing, ruux lala yaabaa noqonay. haddii rabtid inaad ku noqotid muxuu ahaa 1A haddii rabtid inaad ku noqotid column A row 1 haddii rabtid inaad ku noqotid control home key aa taabanaysaa, bacdeen automatically meesha kugu celinaya. muxuu ahaa qaybtaas muxuu ahaa inta Excel uu leeyahay waay. Excel wuxuu kaloo leeyahay muxuu ahaa qayb kore halkaas aa close ku aragtid iyo muxuu ahaa minimize iyo maximize. qaybtan muxuu ahaa minimize-ka ku xigto iyada waxaa waaye waxaa laga hagaajiyaa task muxuu ahaa formula baga waxaa laga hagaajiyaa tabska laga hagaajiyaa. haddii aad tabska inaad iska qarisid waxaa dhufanaysaa calaamadaas arrowga kor u jeedo oo calaamada ay saaran tahay aa ku dhufanaysaa. calaamada markaa ku dhufatid muxuu ahaa waxaa kuusoo baxaya auto hide ribbon, show tabs iyo show tabs and commands. auto hide ribbon hadda markaa ku dhufano ribbonka idil wuu naga baxaa. haddii rabtid inaad dib usoo celisid iyada haddana arrowgiia ku dhufanaysaa, show tabs and commands aa ku dhufanaya, kabacdi dibay usoo noqonayaan. Excel wuxuu ka kooban yahay oo kale sheets aa ku jiraan. halkaa sheet 1 aa ku jirto. sheet 1 haddii rabtid inaad muxuu iska bedeshid oo magac ku bedeshid sheet 1 dhag right click ku siinaysaa. hadhoweyaa ka bixin doontaa. haddii rabtid inaad muxuu ahaa iska bedeshid sheetka magaceeda sheet 1 aadan rabin, sheet 1ka right click ku dhehaysaa mouse-ka, kabacdi waxaad tegaysaa rename. anaga sheetkan waxaa ku qoranaynaa muxuu ahaa GCI expenses. that's our company, I mean GCI expenses. haddii rabtid inaad kusoo dartid sheet cusubna muxuu ahaa halkaas blast ay ku qoran tahay new sheet waaye oo kusoo daraysaa sheet 2 sheet 3 halkaasaa kusoo daraysaa. marka sheet 1 iyo sheet 2 iyo sheet 3gaas aa arkaysid waxaa waaye worksheet waaye areada ku shaqeynaysa waaye. and thank you for watching. subscribe for our channel and we just see you
subscribe our channelkan noo saar muxuu ahaa waxaan soo hor usoo qaadanay tabska iyo commands iyo groups waxa la isku dhaho iyo sida u kala baxan iyo sheetka sidii magac loogu bedelo iyo sidii magac loogu muxuu ahaa loo kordhiyo inta shay aad ka dhigan kartid haddana maxaa maanta ku dareynaa muxuu ahaa qaybteeni practicalka bilaabeena sida loo geliyo data excel loo geliyo muxuu marka hore waxaa highlight garanaysaa 1 row 1 iyo row 2 iyo row 3 intaas highlight garanaysaa waxaa u jiidaysaa qaybta ilaa aad ka gaartid muxuu ahaa j so hadda waxaan gelinaynaa daatada muxuu ahaa seelashan naga hor muuqdo qaybtan muxuu ahaa arkaysiin formula bar waay kanna muxuu ahaa name box waay halkan isagana ku yaalo had iyo jeer wuxuu sheegaa A1 column A row 1 inaad taaganne haddaan tagna halkaas muxuu ahaa waxaa noo muuqanayso E iyo 5 halkaas ku qormayso column E row 5 ku qormayso so marka halkaa waxaa gelinaynaa muxuu ahaa data gelinaynaa datadan gelinayna waxaa ka dhiganaa monthly budget qaybtan hoose waxaa gelinaynaa stock item haddaa rabtid inaad qaybtan usii socotid d c d e f g h haddaa rabtid inaad tagtid waxaa taabanaysaa tab aad taabanaysaa tabkii cabs looga koreeya tabka lagu sheegayo haddaa rabtid inaad hoos soo degtidna waxaa taabanaysaa inta qaybtan haddaa rabtid inaad ku socotid haddaa muxuu ahaa bidixna ugu arabtid arrowgaas riixaysaa haddaa hoos rabtid hoos usoo degaysaa arrow downkiya riixaysaa stock item halkan waxaa nooga qortaa January jan ah kasoo gaabsanaa kabacdi waa jiiditaanka jiidaya asaga automatically excel isku buuxinaya ilaa waxaan geenaynaa June aan geenaynaa so muxuu ahaa intaasaytu muxuu ahaa waxaa waaye budgetka iyo waxaa isticmaalnay bacdeen muxuu ahaa halkan waxaan ku qoranaynaa muxuu ahaa computers down house igu soo soco muxuu ahaa waxaan ku qoraynaa muxuu ahaa laptops inta waxaa halkaas haddana ku qoraynaa muxuu ahaa socket for electricity halkaas waxaa ku qoraynaa muxuu ahaa network wires network cables inta qaybta ayadana waxaa ku qoraynaa muxuu ahaa network tool inta equipments waxaa kaloo ku qoraynaa muxuu ahaa waxaa kaloo ku qoraynaa fans marwaxado hoos waxaa ku qoraynaa muxuu ahaa desks computer la saari lahaa kuraastii chairska lagu fadhiisan lahaa so January inta isticmaalna ilaa iyo waxaan isticmaalna muxuu ahaa lacag gaarayso 20,000 February waxaa isticmaalnay 30,000 March waxaa isticmaalnay 10,000 April waxaan isticmaalnay 8,000 May waxaan isticmaalnay 9,000 so muxuu ahaa tablekaas buuxiya any kind of muxuu ahaa dimension arabtiin ku buuxiya anakaygaan buuxsanaa waxaa iskugu imaanaynaa totalka iyo muxuu ahaa average waxyaabahaas isla xisaabeynaa so let us do that aan buuxina tablekaasayto so daatadii waa buuxinay ani xaggayga waa buuxiyey idinkana waa buuxiseen aan filayaa video boos dhaha daatada kabacdi buuxiya daatada buuxiyo wataas waa format garin doonaa waa hagaajin doonaa ayaga dhanbo muxuu ahaa daatada marka hore ismi again waxaa rabaa muxuu ahaa inaan formatting ku sameyno Excel daatada horteena taal inaan formatting ku sameyno
marka hore title-ka hagaajinayna oo formatting ku sameynayna title-ka waa jiidayna ilaa iyo halkaas geesanayna key bacdin merge and center ku dhufanayna title-ka dhan dhexdu tagaya title-ka dhex markuu tago waa highlight gareynayna marka highlight gareyno waxa u hagaajinayna farta bold uga dhigana italicize na ka dhigana font type waxa ka dooranayna Algerian qaybtaas Calibri ay ku qorantay font type koowaad waxa ka dooranayna Algerian font size ka waxa ka dhiganayna muxuu ahaa ilaa iyo 22 pixel up to 20 pixel ka dhiganayna si uu u fit gareyso farta colorkeeda halkaas ka dooranayna qoraalka colorkiisa noocaas ka dhiganayna qoraalka colorkiisa background-ka farta ee ku fadhisan waxa ka dhiganayna qaybtaas halkaas background-ka u bedelayna farta colorkeedana iyadana balaagay saaran tahay waxaan ka dhiganayna maroon ka dhiganayna meeshan muxuu ahaa stock item aan ugu qoran item ma muuqdo waxaan sameeynaa muxuu ahaa halkaas ku dhufanayna arrowga eeda markay fuusho xariijinta waa jiidaysaa si itemku u muuqdo iyo alaabaha kale haddii alaabaha kale noo muuqanin oo kale ayadana waan ku dareynaa ilaa iyo alaabaha kale ay noo muuqdaan marka halkan waxaa noogu yaal computers laptops stocks sockets network cables alaabta dhan waa noo muuqataa alaabtana muxuu ahaa qaybtana muxuu ahaa qaybtii price-ka waxaan muxuu ahaa edit gareynaynaa haddana qaybtan title-ka kore ah ayadana bold waa noo tahay italicize ka dhigana colorkeedana waxaan siinaynaa muxuu ahaa maroon maadaama uu title yahay farta qoraalka muxuu ahaa xisaabta iyadana qaybta numberka ka hagaajinayna general meesha numbers ka dhigana bacdin into two decimal places galayso daarti waa iska qaadi kartaa oo general ka dhigan kartaa hadaad xisaabaad dollar sign waxyaabahaas inaad ka dhigatid dollar iyo muxuu ahaa currency inaad ka dhigatid iyagana halkaas ka soo gelinaysaa hadaad inaad percentage ka dhigatid muxuu ahaa qaybtaas una tagaysaa percentage kaas saaranaysaa hadaad meesha inaad ku celisidna muxuu ahaa waxaa ka dooranaysaa general fartan halkan noo muuqato ayada dhanba waxay taagan tahay qaybta waxay taagan tahay midig xisaabta marka bidaxa way geysanaynaa qaybtan alignmentiga waxaa ka dooranaysaa ka ugu horeysa ay ku qoran tahay align left qoraalka dhan uu israa bidixuu tagayaa qaybtan waa formattingka muxuu ahaa lagu hagaajiyey farta lagu edit gareeyo farta colorkeeda waa bedelaynaa muxuu ahaa waxaa ka dhiganaynaa red ka dhiganaynaa farta colorkeeda computerska iyo stock itemskana ayagana waa edit gareynaynaa muxuu ahaa italicize ka dhigana jiif center geynaynaa hadaad center inaad geyso hadaad left inaad geysin leftiyaa geysanay balse qoraal waaye xuruuf waaye right ku deynaynaa meeshooda ku habboon yihiin ayagana halkaas saas loogu hagaajiyaa bacdin halkan muxuu ahaa waxaa ku xisaabinaynaa total gelinaynaa totalka dhowr siyaabo waa loo hagaajiyaa inaad halkaa dhexdid equal to sum ayadoo code caadi ah gelisid open bracket shift number 9 totalkan wuxuu ka bilaabanaa January waxay ku jirtaa column B row 3 marka waxaa halkaa dhehnaa B3 soo qabanayna dot waxaana ugu dambeeya June ugu dambeeya oo G3 ayadan ay ku jirto bacdin close bracket aa leenahay highlighta fuulay inta dhexeysa marka hoosa drag kusoo sameynaysaa hoosa usoo jiidaysaa ilaa ay ka buuxisid chairs-ka booskooda ka imaatid saasay ku buuxin kartaa totalka qaab kaloo lagu buuxiyana way jirtaa inaad muxuu halkaa ku dhufatid auto sum halkaas muxuu ay ku qoran tahay edit degtid muxuu auto sum ka dooratid bacdin inta dhahdid ayadana haddana waxaa xisaabin doonaa commission si aad u xisaabisid muxuu ahaa sell
I2 waxaa ku qoraysaa commission waxaan xisaabinaynaa 2% of commission so marka 2% inaad xisaabisid waxay imaanayso inaad muxuu ahaa A to alf aad tagtid halkaas aad ku qoratid commission halkaa hoosana aad ku qoratid 2% commissionka xisaabinayna hadda halkaas waxaa dhehaysaa equal to kabacdi waxaa dooranaysaa muxuu ahaa 2% yaa click dhehaysaa oo dooranaysaa oo bacdeen waxaa isla qabanaysaa shift number 8 oo ah times kabacdi totalka ku dhufanaysaa kadib waxaa dhehaysaa inta xisaabta halkaas waxaa kuu soo baxayso 1840 bacdeen hoose u jiidaysaa kulli waxay wada noqdeen 0 waxaa 0 ka dhigaa wax kale ma ahan relative u isticmaalaa excel hadda kan waxaa ku dhufanay eedaatiin ku dhufanay ee ugu jirto formulaha haddaad imaatid muxuu ahaa next column waxaa arkaysaa inay ugu dhufsan tahay marka double click siisid A14 so marka A14 uu nooc calaameysma wuxuu noqonaa 0 uu noqonaa marka cell A14 wax kuma jiraan kadib muxuu ahaa waxaa tagaysaa kan ku xigo oo ah 17900 isagana cell A15 ku dhufanaya oo halkaas hadda calaamadda ay fuulayso so marka waxaa rabnaa kulli inay ku wada dhacaan cell A13 si fixed u noqoto commissionkaas kadib waxaa ka dooranaynaa halkaas eeda formula baga waxaa idinkaga muuqdo equal to A13 times H3 equal to waxaa ku xijinaysaa sin dollar shift number 4 sin dollar ku hormarinaysaa وبعدين muxuu ahaa eeda iyo 13 dhexdoodana waxa dhex dhigaysaa sin dollar ayadana shift number 4 وبعدين inta leedahay 1840 noqonaysa 1840 gaas waxa waaye absolute waxay ka dhigan tahay fixed waa kulli waxay wada qaadanayaan وبعدين fix ay wada qaadanayaan kan hada ku dhufatid 786 hada ku dhufatid wuxuu wataa cell A13 wataa hada double click dhahdid oo double click ku dhufatid A13 wataa hada muxuu ahaa 26.8 double click dhahdid A13 wataa isagana 26 A13 wataa isagana kabacdi inta dhehaysaa sidaas muxuu ahaa commission lagu hela waxaa hadana xisaabin doonaa oo raadin doonaa VAT ka raadin doonaa VAT waxaa lagu helaa VAT ka asaga waxaa laga wadaa value added text isagana waa raadin doonaa oo bacdeen waxaa raadin doonaa achievement so nala soco channelkeena subscribe saar waan ku mahadsantihiin sida qiimaha badan aad noo daawateen wixii muxuu ahaa su'aalo ah below section commentiga nagu soo qor commentiga meesha afaham weysidna anaga u helan oo kaa baahitiri doono thank you for watching doonaa VAT-ka VAT waxaa laga wadaa value added text halkaasaa VAT ku qoranaynaa next commission and to get VAT saa u heshid waxaad muxuu ahaa waxaan isticmaalaynaa 18% of VAT 18% of VAT ka isticmaalayna halkaa waxaa ku qoraysaa equal to 18 times 18% I mean percent there shift number 5 percentage noqonaysaa 18% markay noqoto waxaa ku dhufanaysaa times multiplication shift number 8 asterisk times total oo halkaa noo yaala ku dhufanaysaa ayadana kabacdi inta dhehaysaa وبعدين hoose u jiidaysaa drag and drop ku sameynaysaa ilaa iyo halka aad ka tagtid halkaasna waxaa muxuu ahaa ku xisaabin doonaa achievement sidoo kale maadaama aan muxuu ahaa xisaabinay targetkii wuxuu idil halkaas waxaa noo galaa achievement waxaa lagu helayaa marka hore inaad haysatid muxuu ahaa target muxuu ahaa ruuxa uu hiigsanayo targetkaas muxuu ahaa waxaan soo gelin doonaa column cusub halkaas b-daas aad dul tegaysaa column b aad dul tegaysaa b markaad dul tagtid dhagaa ku siinaysaa waxaa tegaysaa kabacdi sales aad tegaysaa a group of sales insert aad kasii tegaysaa وبعدين insert sheet columns aad dhehaysaa insert sheet column halkaa markay soo gasho halkaas waxaa ku qoraysaa target aad ku qoraysaa target markaa ku qortid halkaas waa buuxinaysaa please halkaas buuxiya videoga
sida ugu buuxina ka raaca videoga waa boos gareysaan aan filayaa targetka halkaas buuxiya sideeta u buuxiya achievement markaa rabti inaa heshid muxuu ahaa waxaa xisaabinaysaa halkaas ku xisaabinaysaa equal to aa leedahay totalka click siinaysaa oo si halkaas ku jiro divide by markaad tegaysid muxuu ahaa calaamadaas aad dooranaysaa oo divide by u taagan divide by targetkan halkaas ku jira oo bacdeen waxaa leedahay inta muxuu ahaa si aad muxuu ahaa achievementiga aad u heshid intaas waxaa noogu dhan muxuu ahaa commissionka vatka totalka iyo achievementiga waxaa soo gelin doonaa muxuu ahaa chatsaa soo gelin doonaa oo naga saacideynaya in muxuu ahaa aan paychat ahaan marka paychat marka rabti inaad soo gelisid insaadaa tegeysaa insaad intaadan tagin kahor muxuu ahaa row iyo columnkii wax oo dhan aa wada dooranaysaa kabacdi insaadaa tegeysaa paychatka muxuu ahaa waxaa ka dooranaysaa marka midkaa waxaa isticmaali doonaa pivot paychat insert combo chat aa soo gelinay halkaas waxaa titleka noogu qoreysaa ku qortaa monthly budget kalarkeedana taas madow waa ka dhiganaynaa so muxuu ahaa chatkii wakaa waa soo gelinay hadday noqoto commission iyo wax walba hadday noqoto halkaas ku xisaabinaya waa ku mahadsantihiin maadaama aad daawateen muxuu ahaa videogeena subscribe noo saara noo share gareeya like noo saara muxuu ah wixii aa fahmi weyseen commentiga hoos nagala soo xiriira si aan idinkaga baahi tirno thank you